wafdi uu hogaaminaya taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Sarreeyagaas Maxamed Xasan Xamuud ayaa maanta galinkii dambe soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Taliyaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah labada gole ee dawladda Jubbaland. waxaana taliyaha wafdigiisa qayb ka ahaa saraakiil ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. soo dhaweyn iyo salaan kadib wafdiga ayaa saxaafadda kula hadlay qaybta nasashada garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. waxaana ugu horeyn hadalka qaatay wasiirka arrimaha gudaha dawlad goboleedka Jubbaland Maxamed Faarax Darwiish. waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: mudana taliye waxa sharaf noo ah inaad maanta nagu soo siyaarata adiga iyo saraakiishii dhammaan booliiska degmada Kismaayo oo magaalada madaxda ku meel gaarka ah ee maamulka dawladeedka Jubbaland. waxaan isleeyahay maahan markii kuugu horeysay mana noqon doono markii kuugu dambeeyay insha Allah. halkan waxa diyaar kuugu ah saraakiishii qaabilsaneen ciidamada Jubbaland madaxdoodii, taliyihii guud ee ciidamada iyo taliyihii booliiska General Numal oo isagu ah key master. dhammaantayo waxaanu halkan u taagneen maanta oo dhan soo dhaweyntiina iyo marxabeyntiina. waxaan jecelahay wixii program maadaama xilli kulul la yimid inaan ku koobo soo dhaweynta iyo muqaabilada kadibna insha Allah markii aad degtaan programka sidii aanu ku helay bariso waxweyn oo bilaaban doona. waxaan mar kale leeyahay ku soo dhawow. waxaan jecelahay inaan kugu soo dhaweeyo kugu wareejiyo telefoonka mikrofoonka. aad iyo aad baan runtii uga mahad celinaynaa inaad maanta awoodaan ugu timaadaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo aan halka maqnayn hogaamiye taliye xigeen. annaga aad baan noo farxad gelinaysaa runtiina waxaanu expectation ka iyagu mid sare weeye. safarkii hore wax badan baan ka dhaafnay kana waxaan rajaynaynaa wax badan inaan ka faa'iideyno laakiin ka hor dhici maayo taliyaha ku dhawaaqi doono. sidoo kale waxaa isla dhankiisa hadlay taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Sarreeyagaas Maxamed Xasan Xamuud. wuxuuna sheegay in magaalada Kismaayo ujeedka ay u yimaadeen uu yahay sidii loo horumarin lahaa booliiska Soomaaliyeed maadaama dhamaadka sanadkan la filayo doorashooyin inay ka dhacaan dalka Soomaaliya. sida aad la socotaan laba bil ka hor bay ahayd markii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka ay go'aan ku gaareen in booliiska Soomaaliyeed oo hadda booliis qaran ah يعني laga dhigo police federal iyo police dawlad goboleed. marka iyadoo taas la fulinayo ayaan waxaan rabnaa inaan anakana aan meel alla meeshii aan tagi karno wixii aan qaban karno oo awoodeena federal ahaan inaan ku gacan siino maamulada hadda soo dhismaaya oo ay ka mid tahay Jubbaland. runtii waanu ku faraxsanahay saraakiisha reportka ugu soo dhaweysay oo ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Faarax Darwiish. waxaan rajaynaynaa markaa in labada maalmood inta aan joogno magaalada Kismaayo in aan warar badan ku saabsan sidii maanta meesha uu joogo booliiska Jubbaland uu hore ugu dhaqaaqi lahaa. runtii waanu ku rajaynahay inaan wax badan aan tari doono maamulada maartay oo ka jira dalka oo dhan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ujeedadiina waqtiga aad hogaaminaysay maxaa ujeedada ku imaatay magaalada Kismaayo? ujeedada aan ku imaanay waxa waaye in la fahamsiiyo saraakiisha booliiska ee maamul goboleedka oo ayaga laba nooc kala ah. waa nooc federal iyo nooc maamul goboleedkoos imaanaya. maxaa talaabada maanta la jooga xagee laga aadaa maadaama ay nagu soo socoto doorasho la sameynayo amniga sideen uga tabaabashaysanaa maxaa horumarka noqona. marka tan ugu muhiimsan taas waa inaan wax isdhaafsano. Zakariya Cabdiqaadir Karazai TV-ga caalamiga bulsho magaalada Kismaayo.